السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلك وحيابا ugu xiisaha badan taasoo suurtagal ah inuu soo maro noloshaada waa dareenka ugu yaabka badan ee aadanaha markaan jecelnahay aragtiyada noloshaada oo dhan way ka duwan tahay wax walba waxay noqdaan wax qurux badan oo dib nagu soo cusboonaanayo yadadiiladaheenii hore waxaan doonaynaa inaynu noqono kuwa u fiican markaynu jecelnahay waxaan dareemaynaa farxad kalgacayl iyo nolol buuxda ilaa iyo inta aynu haysano saaxiib aynu xasuusano fiid kasto aynu rajeynayno inaan u dhawaano kawaran haddii midka aad jeceshahay uusan ku jecleen gabi ahaan wax burin karo ma jiro dareenka dhabta ah oo waxay u noqotaa dareen xanuun badan sida haddii qofka aad jeceshahay uusan ku daryeelin oo uusan ka bedelayn isla dareenkaas waa ugu xanuunka badan waa haddii uu jecel yahay dad kale ama uu leeyahay mashruuc xiriir hore u jiray dadka badankoodii ayaa kala kulmo dhibaato marka ay ka helaan ama ay jeclaadaan qof gaar ah haddii qof aad jeceshahay isaga weligii ku jeclaan maayo waatan waxa ay tahay inaad u istaagto marka aad go'aansato inaad ku guuleysato qalbiga oo aad maamusho maskaxdiisa iyo fikradiisa aad u yeesho arimaha wax ku fiican oo aad u bedesho dhammaan dareemaha dadka qaar inay noqdaan dareen jaceyl taasina waa iyada oo loo marayo arimahan soo socda balse intaanan bilaabin ka hor haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe-ka taawo gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wax walba oo cusub aynu soo gelino haddii aad horeyna la joogtayna like saar oo la wadaag asxaabtaada si ay kula faa'iidaystaan kuna soo qor fikirkaaga fiican qaybta hoose ee kommentiyada mahadsanid ugu horeyn dhoola cadeyn joogta ah qofka mar walba dhoola cadeeya wuxuu kula xiriiraa si saaxiibtinimo ah hab la yaab leh waxa ugu muhiimsan inaad samaysid markii aad la kulanto qof aad jeceshahay waa inaad had iyo jeer u muuqataa qof faraxsan oo dhoola cadeynayo tani waxay soo saaraysaa quruxda muuqaalkaaga weligaa ma arkaysid marka aad eegto naftaada qosol la'aan raggu waxay jecel yihiin inay la joogaan dumar faraxsan oo yaqaano sida noloshooda ugu noolaadaan si la yaab leh haddii uu ku arko ninka adigoo ku qoslayo wax xiiso leh wuxuu garan doonaa sidaad ugu kalsoon tahay waxayna u horseedi kartaa inuu ku barto taasi ma ahan ka soo horjeedkiisa dhoola cadeyntaadu waxay ka caawin kartaa inaad jeclaato labo danee muuqaalkaaga ilaa heerarka ugu sareeyo xiisaha aad u qabto shakhsiyadaada iyo ilaalinta badbaadinteeda waa aasaaska wax walba haddii aad damacsan tahay inaad qof ka dhigto inuu ku jeclaado ha ka filanin qof inuu kuu aqbalo gacmo furan iyo dhoola cadeyn haddii aad tahay qof ilowsan muuqaalkeeda yeelo muuqaalka ugu fiican ee aad ka dhex muuqan karto maxaa yeelay ishu waa wax ugu horeeyo ee dareemayo jaceylka saddex ku kalsoonida nafta ka sokow xiisaha ninku uu leeyahay muuqaalka haweeneyda iyo xiisaheeda dhedigeeda haybada iyo jilacsanaanta sidoo kale asigu uu jecel yahay haweeneyda ku kalsoon nafteeda wuxuu ku arkaa dhedhignimadeeda awood shakhsiyadeed gaar ahaan kuwa leh awood sare si ay isugu rogaan bulshada dhexdeeda waxayna ujeedadeedu tahay inay ku guuleysato goobteeda shaqo iyo hamigeeda afar labada indhood in laisku eego inta aad la sheekaysanayso qofka aad jeceshahay uqasad inaad eegmada ku dheerayso indhihiisa culimada cilmu nafsiga ayaa sidoo kale xaqiijiyay in la kulanka dadka indhahooda marka ay wada hadlayaan ay ka dhigayaan kuwa isugu dhow saaxiibtinimo leh midba midka kale waxaa lagu tiriyaa nooca xiriirka adag ee ka dhexeeya naftooda fiiro gaar ah ulama jeedo eegmada indhaha qofka aad la sheekaysanayso inaad fiiriso waa inaad u fiirisaa si degan waqti macquul ah shan si naxariis leh u jeclow qofka aad jeceshahay muuji xiisaha waxyaabaha qofka aad jeceshahay uu danaynayo xiriiri kuwa asiga uu xiriirinayo iskuna day inaad u soo dhawaato kana sameey dhexdiina xiriir la wadaago danayn ama feejignaan haddii aad doonayso inaad soo jiidato nin adoonan adeegsanin qaabkaaga waxaa waajib kuu ah inaad siiso muhiimadda laakiin taasi macnaheedu ma ahan inaad ugu daadiso eryo mahadnaq iyo deeqsiimo leh laakiin ma jiraan inaad u muujiso wax diidayo inaad jeceshahay isaga haddii uu soo maro dhinacaaga si ihtimaam haddii aadan ku dhiirigelisaneyn inaad bilaawdo hadalka ugu yaraan dhoola cadeey oo fiiri indhihiisa waxaa suurtagal ah inta aad siinayso ihtimaamka inaad la wadaagto jaceylkaaga aadna soo jiidato gabdhaha badankoodu way ku khasaaraan jaceylkooda xishoodka dartiisa toddobo marnaba ha u muuqan mid tabar daran dareenkaaga baahida joogtada ah iyo daciiftinimada dhinaca kale waxaad u malaynaysaa inuu asiga faa'iiday laakiin taasi dhab ahaanteeda weligeeda ma dhacayso indhaha ayaa dabiici ahaan u muuqdaan inay la xiriiraan dad xoog badan kuwaasoo go'aan leh ma ahan kuwa daciifo ah oo lagu xukumo
dareenka iyo tabardarida. 8 inaad ka fogaato beenta. waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee laazimayo inaad soo jiidato, halka beenta ay tahay waxyaabaha ugu badan ee ragga ay necab yihiin, habeenkana si la mid ah. sidaas darteeda ninka iyo naagta waxaa waajib ah inay khirtaan khalad walba ay sameeyaan. tusaale ahaan haddii ay haweeneyda ay ku been abuurato ninka, way weyn doontaa kalsoonidiisa siday ayada ay samayn lahayd hadduu ku been abuuran lahaa. sidaas darteeda hanashada qalbiga ninka waa inaad ku waanisaa runta, si dhammaystiranna waa inaad uga fogaataa beenta. ugu dambayn, hadiyad aan dhib lahayn sabab la'aan. markaad u hadiyadeedo ubax qof sabab la'aan wuu ka aqbali doonaa farxad iyo reereen ayadoo ku dheehan tahay. isku day qofka aad jeceshahay inaad u hadiyadeedo adigoo aanan isdhibin waxyaabo uusan kaa filaynin. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. inta aan ku kulmi doonno muuqaalka xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo fi amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.